نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وزيرك وزارة أوقافك وزير الدولة لما الحاضرين علماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي برنتي ومناسبة وناكسن ومهمة لقونا عضينا يو واجب كالنصارى كالصومالي أهان كعلماء أهان قارهان الله سبحانه وتعالى أي قدرين ما أنت أيلونه شرفتا للدجال كخوارجتا شرفتا شرفت النبي صلى الله عليه وسلم وهرب الشيء ونبلغ قادين أسأل لفتيس وسمين لها شرفتا أميد علي رضي الله عنه لو أماني والنبي صلى الله عليه وسلم ويري ما ركتي إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله حيث كم يقف ودقال دونه قرآن كفسرادي سحظة ودقال دونه وقرآن كدفاع دونه كان الدفاع دونه كو عيار هي ومشحون لآذى هي مرة قرآن كمرة سو دقتان كيسا يا لو دقال هي مرة واحد لو دقال قرآن كفسرادي سحظة إلا إلاليو وبوس كلا دقي أن لقى صارين ودينتا أن لا آذي الملكة قرآن مرة واحد لقى واردين هي قالوا مشركين يهودا يا كريستانا مرة واحد لقى واردين يا كولفت وذا الشيغان يعني آمسيين لكن ملحن لا آذي وقرآن عدو هي لقى واردين يا مركا كالنت قرآن كواردين تيساء دفاع قرآن معناه صحضة دينتا معناه صحضة دفاع ديدنا كما يرى دفاع دي سو دقتانكي دينتا إيوه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكل سو ديرهي marka waajibkaas iyo xilkaas ayaa nagu soo aaday maanta runtii waan wax madaxdeena maanta ay furuntiga u jiraan oo ay maarad nagu hogaaminayaan marka mid hore waxa weeyaan tawaamidaas tan kale waxa weeye bishaaradii uu sheegay wasiirku xadiidkuna uu sheegay nimankaana way imaanayaan laakiin waa laga adkaanay waa tirtirahaya marka tirtiridaas nabiga sallallahu alayhi wasallam uu nagu bishaareeyay ayaa meel u taala marka goolka asaga cidii dhalin lahayd ayaa la iska rabaa waana goolka maanta saan isleenahay dawladdeena iyo ciidankeenu iyo culummadeenu ay u istaagay yihiin biidin illaahi tacaala kale waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu bishaareeyay ciidanka maarta la dagaalamaya bishaaro la yaab leh oo haddii cidda la dagaalamaysa ogaan lahaayeen waxa xagga ilaahay u yaala oo ajara camalka iska dayn lahaayeenba camalka iyo salaada iyo cibaadada kale waaba iska dayn lahaayeen marka niman jannadoodu maaragtay ee meel taalo oo jannadoodu ay bishishahay oo diyaar ay tahay waxa laga hubaa waxa weeyaan waa dadka la dagaalamay nimanka ayaga weeyaan oo ajirkoodu iyo ajir meel yaala oo shaqadoodu ay bishishahay weeyaan aan ku soo qatimayaa midda in maaragtay dadka furuntiga jooga oo sharaftaas loo yeelay oo maaragtay shaqadii nabiga sallallahu alayhi wasallam tamaniyay haya oo shaqadii cali iyo saxaabadu qabteen haya uma banaana munaasiban uma aha inay waxay hayaan garan waayaan ama inay ku saamoobaan wararka maalayacniga oo ishaacooyinka oo maaragtay dadka cadowga ay wadaan marka qofkii furuntiga jooga oo sharaftaas la siiyey oo kaalintaas ku aadan hadduu ka soo baxo qofkaas wuxuu galayaa dadka ka carara waxa loo yaqaano firaar yawm az-zahf maalinta maxaan ku waraa dagaal u taagan yahay qofkii soo cararaa qofkaasi kabiiru ku dhacaya garta ومن يولي يوم متحرفا لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله قف كسو عرره فرنتيغا أو كسو عرر عدوغا قف كاس عرض إله سبحانه وتعالى إنه بريره هيو أي أيضا نوع عضيانيان مركز شغاف في عنبا الله هي ودينتا للدفاع ذلك للدفاع هي قرآنك أيا للدفاع هي قرآنك في السرادي صحضة أيا للدفاع هي دينتين مقال كذا ونكتبها للدفاع هي شغال نوع عصوكلا أيضا الله هيو in lagu saamboobo warku turkuteen oo aan sax ahayn ma aha man kale warka dadka noo qaabilsan dawladdu wasaaradaha leedahay mas'uuliyiin beelad waxa jira ayaga laga sugayaa ya ayuha alladheena aamanu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayyanu marka maartay qof wax sheego in lala ordo maahane dadka mas'uuliyiinta iyo jihada lagu og yahay in warka sheegto ayaa looga dambeynaya marka warbaahinta beenta sheegaysa oo balaayada sheegaysa oo dadka khalkhalinaysa waxaa leenahay ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala waajibkiina garta siyaasiyiinta iyo dadka maalayacniga oo doonaya inay goolkiisa ku gaaraan mawduucaana waxaa leenahay siyaasadda noocaas maaha
siyaasaddu waa diintoo la difaaco waa dalkoo la difaaco marka lagu kala hari lahaa oo la iskhilaafi lahaa ma aha khawaarijtuna khilaafka tafaruqa bayba ka faa'iidaystaan ay ku noolaadaan ay ku tarmaan ay ku baraaraan marka midnimadeenna iyo maaragtay iyo ka dambeynta madaxdeenna ayaa nimanka lagu guulaysan kara insha allahu tacaala marka shaqadaas noo taala oo maantana mudatay yaa loo kaarahayn biidn illahi tacaala wassalaamu calaykum waraxmat ullah